codayntii doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Sanaag ayaa si nabadgelyo ah ku soo gabagabowday goobaha codka laga dhiibanayay oo dhammaa 329 goobood ayaa marka laga reebo in yar mooyee goobahaasi intooda badani waa ay soo wada xidhmeen sidaasna waxaa warbaahinta qaranka u sheegay gudoomiyaha komishanka gobolka Sanaag Sharmaake Cabdullaahi hadda laga bilaabana waxaa la gudagelayaa tirintii codadka waxaa si nabad u soo nabad noqday oo soo dhamaaday guud ahaan goobihii gobolka Sanaag kuwa soo dhamaa 329 goobood waxay xidhantay 6 maqribnimo waxaan rajaynaynaa haddii wixii laga dambeeyo in goobaha ay codadka tirintooda bilaabmi doonto goobo yar oo kooban oo kayugu wali sii taagan yahay wali mooyaane kayugu hadday gaadho 6 hadday dhaafto kayugu xagga ugu dambaysa qofka kaga jira askariga baa xagga dambe ka gala sidaa daraadeed in goobaha yar ee kayugu si harsan yahay mooyaane dhammaantood waa si guud bay u xidhmeen waxa bilaabmi doontaa tirinta codadka kadibna waxay ku soo noqon doonaan degmooyinkoodii marka lagu soo tiriyo goobihii dhammaantood waxaan doonayaa inaan halkan hambalyo uga diro shacabka reer Sanaag oo si nabada oo xora oo xalaala sharciga u hoggaansan u codeeyay waxaan leeyahay hambalyo Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceergaabo.